haddaba fanaanka weyn ee Axmed Cali Cigaal ayaa isagu waxa uu la kulmay qisooyin kala duwan. Fanaanku wuxuu ahaa fanaaniintii Soomaalida kuwoodii fanka soo bilaabay 1960meeyadii xilliga ay ahayd dabayaaqadii 60meeyadii ayuu fanka Soomaaliyeed Axmed Cali Cigaal soo bilaabay. xilligaas laga soo bilaabay ilaa iminkana Axmed fanka wuxuu ka yahay xidig aan dhicin mar kastana udub dhaxaadka fanka Soomaalida. Axmed waxa ku dhacay qisooyin kala duwan, qisooyinkaas oo kuwa naxdin leh, kuwa farxad leh, kuwa aad iyo aad. Axmed wuxuu ka mid ahaa fanka Soomaaliyeed dadkii gaarsiiyay meelaha ugu sareysa, isagoo la xamiistayaasha ugu heesaha macaan fanka Soomaalida. heesihiisa dhammaan ay ahaayeen kuwa hirgalay oo fanka Soomaaliyeed ka naqday heese la wada jecel yahay. Axmed ma laha heese aan la aqoonin, heesihiisa dhan waxay ka ahaayeen hit ama waxa loo yaqaano heesaha caan baxay ee fanka Soomaalida. Axmed sidoo kale social bulsho wuxuu ahaa qof farxad badan, soo dhaweyn badan, qosol badan, macaamil wanaagsan, akhlaaq wanaagsan. Axmed hablaha fanka Soomaaliyeed aad ayay u jeclaayeen. fanaanad kasta ama gabadh kasta oo fanka Soomaaliyeed qayb ka ahna waxay jeclayd Axmed inay la hooyato, xaaskiisa naqato ama waliba at least ay ka agdhawaato. Axmed waxay jecel wadaag ahaayeen inantii fanka Soomaaliyeed xitaa ka ahayd hooyada Maryan Mursal Ciise Bootaan oo iyadu u dhashay laba cunug oo Kennedy iyo Kunciil la yiraahdo. Axmed aad iyo aad bay isu jeclaayeen. tolkiisa dagaal bay ka keeneen, dacway ka keeneen in sida dhaqanka Soomaalida oo dhaqan aad u liita dabcan uu qabo in Maryan ay ahayd gabadh tol bilmetal midgaanta dadka ama gabooyaha ka dhalatay aysan Axmed oo gob sida la yiraahdo dadka la yiraahdo ka dhashay aysan u go'san. dadkiisa Axmed waa u diiday, gabadhu jeclaayo go'saday, sida ayuu ku aqal galay. dadkiisa maxay sameeyeen oo ka fanaankii weyna abwaankii fanka Soomaaliya qaybka ee Cabdiqaadir Cali Cigaal Ciro ayaa isagu dadka ka in Axmed la faquuqo tolkiisa laga bixiyo ayaa waxa dhacday qiso xanuun badan. dadkii uu Axmed ka dhashay ee beeshiisa ahaa ee diidanaa Axmed inuu guursado ama ilmo u dhasho qof sida ay leeyihiin gabooye oo aysan u qalmin gayaankiisa aanan ahaynin ayay waxay ka dhigteen tacsi. way duugeen kafan bay soo gadeen, xoolay soo gadeen, tacsi bay ka dhigteen. winankeen wuu naga dhintay bay yiraahdeen isagoo nool fanaana heesaya bulshadiisa ku dhex joogo, xaaskiisa joogo, farxad iyo qosolta ayay tacsi ka dhigteen. way dileen.